بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم أخيارتا نلا سعوتا جمعة وناكسان أيان إذن الله يحي في دوناكسان كسو دوادا مركلية تبنتا ورركا قبلكا باريقا دحي فاقداد الدبلوماسية يلا فقركا سياسة عالمكا واسقال يلا باتنكا بشا مي سنة كاللباكون يلا باتن caawa guud ahaanba gobolka bariga dhexe waa qasan yahay siyaasaddiisa marka la eego dhinaca diblomaasiyaddana waxaa ka muuqanaya guulo aad u xoogan goor dhaweyd madaxweynaha wadanka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in go'doomintii uu ku hayay marinka Hormuz iyo dekedaha wadanka Iran uu meesha ka saari doono dhinaca kalena waxa uu fariin u diray dowladda Iran oo ku leeyahay waa inaad meesha ka saartaan minooyinka badda guntiisa galiseen si aanay waxyeello uga soo gaarin maraakiibta caalamiga halkaas isticmaalaya dhinaca kale Trump ayaa ku dhawaaqay in uu gali doono qolka xaaladda degdega ah ee loo yaqaan situation room-ka ee aqalka cad halkaas uu go'aan uga gaari doono arrimaha nuclear-ka marka isla wararkaasi la eego hogaamiyaha ama afhayeenka baarlamaanka wadanka Iran hayana malafka wada hadalka wadankaasi ee Mareykanka la galayo Maxamed Baaqir Qalibaf ayaa waxa uu ku dhawaaqay in aanu jirin kalsooni ay u hayaan wadanka Mareykanka sidaas darteedna wada hadallada hadda soconaya ay noqonayaan kuwa mugdi galaya maxaa la iska yiri arrimaha nuclear-ka wadanka Iran 12 bilyan oo dollarka Mareykanka oo kamid ah lacagihii dowladda Iran uga xayirnaa dunida ayaa lagu wadaa in la fasaxo taas oo ka dhigmaysa in gobolka bariga dhexe xaaladiisu ay isbedelayaan suuqa saamiyada ayaan sidoo kale eegi doonaa oo heshiiska iyo xabad joojinta la gaaray ee 60 maalin soconaysa durbaba uu saameyn ku yeeshay marka la eego sida ay hadda wax u jiraan dowladaha Qatar iyo waliba Pakistan waxa ay sameynayaan dhaxdhaxaadintii ugu xooganeyd iyadoo la filayo dhinacyadu in ay goola degdega gaari karaan inkastoo aan heshiiska si rasmi ah qalinka loogu doogin haddana waxa soconaya isbedelo waaweyn maxaa la iska yiri xaaladda Lebanon dowladda Iran ma dhabarka ay u jeedisay shacabkaasi mase waxa jira isbedel arinta heshiiska ay ku soo dareen Netanyahu iyo waliba taliyihiisa ciidamada ee dagaalka ku jira Iyaal Samirna hadal ay soo daayeen goordhow qodobadaasi ayaan isugu ka xiri doonaa iyo waliba jihada dhabta ah ee gobolka bariga dhexe oo hadda ku sii socday khiyaarta ay nala socotay soo dhawaada meel kasta oo dunida joogtaan halka aad naga daawanaysaan waa channelka Cabdicasiis Barrow ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara waxaad sidoo kale xogo kale ka heli kartaa channelkan kale ee Barrow Show wixii jawaab laga sugo oo ku aadanaa wada hadalka iyo waliba go'aanada kama dambaysta uu gaari karo waxa uu muuqanayaa dhabihii loo filayay in uu cagta saaray kadib markii uu ku dhawaaqay in go'doomintii dekedaha wadanka Iran uu qaadayo saacadaha inagu soo foole waxa uu sidoo kale fariin u diray dowladda Tehran isagoo ku yiri idinkana waa inaad meesha ka saartaan minooyinka aad ku aasteen halkaasi maadaama isbedelo waaweyn ay hadda dhacayaan inkastoo Trump uu jeedinayo hadallo iyo dedeelo leh oo ku saabsan dhinaca wada xaajoodka iyo waliba dowladda Mareykanka iyo Iran inay gaari karaan heshiis xabad joojina oo 60 maalin oo kale oo dheeraada soconaya haddana waxa muuqanaya in wali dhinacyadu aanay is aaminsanayn wakaaladda wararka Faris ee ku dhow ciidamada dalka Iran ayaa goordhow waxa ay baahisay hadallada ka soo baxaya madaxweynaha dalka Mareykanka inaanay u dhigmin kuwa run ah oo ku dhow cadaaladda heshiiska iyo waliba wada hadallada Pakistan iyo Qatar ay ka shaqeynayaan مسؤول لحظة وكالة سو مجلس قرية وحويري ترام هذا الكيس بروا بين بركلنا ورون مركل إيجو هذا البدني سا أي سار ما هاسي أردني أي كوه الله بيان إلى هذا مجرد أنا لسكيري نيوكليركا مدام ترام وكل واقعي دولة إيران نيوكلير كذا إن أي أقبل كريسو إن لبربريو وحويري كاسوا بين أو إلى هذا مجرد عد أرمهاسي ميسكا إسلاسو صارتي dowladda Iran waxay sidoo kale leedahay arrimaha nuclear-ka waxa uu noqon doonaa malaf iyo maalin gaar ah oo madal gaar ah loo siyaasadeyn doono oo dhinacyadu ay isla faaqidi doonaan haddii la isku afgarto waxba la iska oran doonaa laakiin dowladda Iran uma eka in ay si degdeg ah
cadow isugu loogayso oo ay ka tanaasuleyso waxyaabo taabanaya masiirka madax banaanida iyo waliba jihada qarannimada ee wadanka Iiraan 60 maalin oo horseedi doona ayaa loo arkaa isbedel cusub inkasta oo waxa dhacaya nidaamka Tel Aviv waa Israa'iil ay u noqonayaan shil wadnaha kaga taala haddana waxay u ekaanaysaa dowladda Mareykanku markan inay go'aansatay malafka iyo waliba faylka wadanka Iiraan in ay iska soo xirto maadaama dagaalada dhacaya ee dhiigbax dhaqaale mid ciidan iyo waliba mid teknoolojiyadeed oo xagga dagaalka ah uu saameyn weyn ku yeeshay iyadoo arrimahaasi ay taagan tahay madaxweyne Trumpna uu go'aanadaas cadcad banaanka keenayo waxa uu ku dhawaaqay in goordhow uu gali doono qolka situation roomka loo yaqaano ama qolka xaaladaha degdega ah ee wadanka Mareykanka ee ku yaala aqalka cad waa qolka looga hadlo arrimaha dagaalka howlgallada gaarka ah ee Mareykanku uu fulinayo iyo waliba halka laga jaheeyo malafyada amniga iyo ciidamada marka dalka Mareykanka uu wajahayo xaalad gooniya waxa uu yiri go'aanada nuclearka ayaan gaari doonaa waxa la fariisan doona khubaro si gaar ah u tababaran oo arrimaha amniga dalka Mareykanka kala shaqeeya aqalka cad ee Trump waxana arrimaha nuclearka go'aanka uu ka qaadanaya aan la ogeyn iyadoo ay u badan tahay in arrimaha wada hadalka iyo wada xaajoodka dhinaca diblomaasiyadda uu xooga saari doono dowladda Pakistan toddobaadkii la soo dhaafay waxa ay samaysay mid kamid ah dadaaladii ugu xooganaa iyadoo wasiirka amuraha gudaha iyo waliba taliyaha ciidamada qalabka sida ee wadankaasi General Qasim Munir waa Pakistan ay ku noqnoqdeen magaalada Tehran ee caasimadda wadanka Iiraan lana fariisteen mas'uuliyiin uu kamid yahay Mas'uud Pezeshkian madaxweynaha wadanka Iiraan wasiirka amuraha dibadda Dr. Abbas Araghchi afayeenka baarlamaanka malafka wada hadalka hayana ninka la yiraahdo Mohammed Baqir Khalibaf saraakiil ka tirsan ciidamada sarsare ee wadanka sida General Wahidi oo kale oo ah ninka taliyaha ugu sareeya ciidamada ilaalada kacaanka ah isla markaana ah saaxiibka dhow ee Ayatollah Mujtaba Khamenei dhinacyadu waxa ay si weyn isugu la fagoreen arrimaha gobolka iyo waliba Iiraan haddii wada xaajoodkan ay qaadato sida Mareykanka looga keeni karayo kalsooni ah in la wada shaqeeyo inkastoo dhinaca Iiraan xitaa wararka ka imaanaya ay tilmaamayeen inay ahaayeen kuwa uu shaki ku kala dhex jiray oo dhammaantood saddex garab u kala safnaa General Wahidi iyo ilaalada sare ee ciidamada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan ragga saraakiisha waxay qabeen in aan la isdhiibin Mareykanka iyo Israa'iilna wada hadal kasta oo lala galaysa waxba ka soo naasacadaanayn oo iyadoo gogasha wada xaajoodka la fadhiya ay tilaabooyin qaadayaan marka waxay oranayeen cid aan lagu kalsoonaan karin go'aamadooda aan meel mar lahayn waxa la isla qaata aan fulin karin sabab loo heshiiyo ma jirto marka rag baan nahay aan dagaalano ilaa guusha ugu dambaysa aan gacanta saari doono qayb kamid ah wadanka Iiraan ayaa sidaas aaminsanaa qayb kale uu kamid yahay Mas'uud Pezeshkian iyo rag la tilmaamayo inuu kamid yahay Mohammed Baqir Khalibaf oo afayeenka baarlamaanka ah iyo waliba saraakiil dhexe iyana waxay aaminsanaayeen ragga loo yaqaano dhaxdhaxaadka ee dalka Iiraan waxay aaminsanaayeen bal wada xaajoodka in lagu dayo oo sheekadu ay noqon karayso dameer ceel ku dhacayba koy waa lagu dayaayay Mareykanka aan wada hadal la galno haddii in kamida wada xaajoodka heshiis laga keeni karo qayb kale ayaa iyana aaminsanayd arrimahaas oo dhan wax ka bedelan oo waxay oranayeen hadiiba nuclearka nolosha wadankeena ay ku xiran tahay maxaan isugu baabi'inaynaa arrintan oo maan isaga dhanba ka tanaasulno oo wada xaajoodkan reer galbeedka iyo Trump waxa uu doonayo aan si dhaba u wajahno si dhaqaalaha dunida looga xayiran iyo mashaakilaadka aan wajahayno iyo waliba dhibaatooyinka taagan meesha looga saari karo kala qaybsanaantaasi marka waxay ahayd mid si weyn warbaahinta shisheeye ee ka hadlaysa wadanka Iiraan ay si weyn u falanqeynayeen oo ay oranayeen xitaa mararka qaar Trump iyo waliba
ninka la yiraahdo Jared Kushner oo sodonka u yahay Trump iyo ninka gobolka bariga dhexe uu qaabilsanay Steve Witkoff la yiraahdo raggaasi waxay aaminsanaayeen in cid hadda talada wadanka Iran ay ka go'daan la aqoon wada hadal iyo wada xaajood kasta oo lala galana aanay hadda waxba ka iimaaneyn dhinacaas marka la eego waxa jiray dhinac kale oo Mareykanka ah oo aragti kala qabay oo uu kamid yahay Pete Hegseth ninka la yiraahdo wasiirka difaaca wadanka Mareykanka ama xogayaha dagaalka loo bixiyo hadda ninkaasi waxa uu aaminsanaa in Iran arbaaxa adag lagu dhufto oo awood lagu maqooniyo marka dawladda Iran iyadoo xaaladaas ka dhex jirto Mareykankana laba aragti ay qabeen Trumpna uu arkay mashaakil weyn inuu dhexda uga jiro oo dhinaca dagaalka ah ku dhiig baxay gantaalihiisi waaweynaa ee Patriot difaaca gantaalka la yiraahdo Tomahawk weerarka loo adeegsado iyo qaar kamid ah sawaariiqda dagaalka iyo diyaaradaha droneska iswada sida MQ Rabar oo kale diyaaradaas oo aad qaali u ah dagaalada uu ku waayay kaydkii difaaca wadanka Mareykankana oo aad runtii hoos u dhacay boqolkiiba 50 sida The New York Times iyo Washington Post iyo CBS television-ka la yiraahdo Mareykanku ay tabiyeenba waxa u muuqatay labada dhinac in ay si weyn isugu dhigbaxeen taasi marka waxa ay dhalisay in marka la eego jihada rasmiga ah ee dagaalka labada dhinac aysan dani ugu jirin Trump qudhiisa waxa haystay dhibaatooyin kale oo xoog leh oo dagaalkaasi saameyn ku lahaa wadamada khaliijka oo kale hadii ay noqon lahayd Kuwait Bahrain wadanka la yiraahdo Imaaraadka Saudi Arabia dhamaantood waxay la kulmayaan warar kala duwan oo wadanka Iran uga imaanaya gobahaasi waxa uu ku leeyahay saldhigyo waaweyn Sacuudiga oo kale waxay diideen Prince Sultan saldhigga la yiraahdo ciidamada cirka Mareykanku ay isticmaalaan oo kale inaan weerar laga qaadi doonin dadba dhinaca kale saldanada Ammaan oo kale waxa ay diidanayeen xaaladda u socday ilaa shalay uu Trump ku qasbanaaday inuu si weyn wadankaasi ugu hanjabo yiraahdo una qabateen baad ugu soo rogaya waa Oman hadii aad dhinacan Iran u garab raacaysan Kuwait ilaa maalintii dagaalka 28 February uu bilowday ilaa iyo maanta la joogo waxay la kulantay in shidaalkeedii caalamka ay ka iibin weyso oo aanay wax dhoofina sameyn Imaaraadka oo kale waxa si weyn loo duqeeyay xarunta nuclear-ka ee tamarta loo isticmaalo ee Baraka la yiraahdo iyo waliba goobaha shidaalka sida Al-Fujairah oo kale dhibaatooyin xoogan ayaa ka dhacay dhinaca Qatar oo kale waxa la weeraray xarumaha warshadaha soo saarista shidaalka intaas oo dhan marka Iran ayaa ka dambeysay wadamadan waxay bilaabeen cadaadis adag waxana ay doonayeen Trump inuu ka baxo dagaalkan oo xal kala keenay iyadoo mararka qaar The Axios iyo wargeyska The New York Times ay dhahayeen dawladaha Sacuudiga iyo Imaaraadku waa rabeen in dalkan Iran aad loo garaaco oo la naaqusiyo tabartooda laakiin culayskan dhaqaale markii uu fuulay ayay saameyn ku yeelatay Trump markuu arrimahaas isku gaageysta waxa uu ku dhawaaqay xisaarkii ama go'doonkii inuu meesha ka saaray wada hadallada si dhabana in loo wajahayo halka dawladda Iran ay leedahay innaga Trump ma aqbali karayno waa nin maalintiiba gelin bacayna oo subaxina isagoo cad ku imaanaya habeenkina isagoo madow ku imaanaya nin isbadbedel badan oo xaaladaha iyo duruufaha ay rogrogaan marka kuma kalsoonaan karno ayuu leeyahay Qalibaaf hogaamiyaha baarlamaanka wadanka Iran dhinaca kale wakaalada Faris oo arintan caawa aad u falanqeynaysa waa Iran waxay leedahay 12 bilyan oo dollarka Mareykanka ayaa ku hor saxiixan la sii deyn doona Israel hore waatii ugu dhawaaqdaba in aanay ka bixi doonin dagaalka oo ciidamadooda heegan ay ku jiraan ilaa inta nuclear-ka iyo sawaariiqda adag ee dawladda Iran ay hayso iyo diyaaradan shiid meesha laga saarayo hadii kale mushkiladu ay aad u adkaan doonto heshiiska lama gaarin dawladda Pakistan waa rafanaysa carabtu waxay rabaan in xal la gaaro Trump waxa uu arkaa dagaalkan inuu ku dhig baxay oo uu lagu qabanayo Shiinaha iyo Ruushka dhinaca Shiinaha xataa xog badan ayuu dagaalkan ka helay teknolojiyada wadanka Mareykanka quwadda madaafiicdiisa xawaaraha ay socon karaan iyo burburka ay geysan karaanba marka waxa la leeyahay CIA-da xogta ay hadda wax ku dhisayso dagaal kasta oo Iran lala galo ma noqonayo mid dhab sax ah ku rida wadankaasi xaaladana waa adkaan doontaa marka waxaynu eegi doonaa bal Trump markuu qolka situation room-ka galo waxyaabaha uu soo saaro iyo sida uu hadalka u dhigo haddii heshiis la gaaro marka Iran laga yimaado cidda faa'iideysa waa carabta oo dib u helaysa marin ay wax marsiyaan iyo waliba kaalmaha shidaalka Iran
waxay iyana caawa sidoo kale ku dhawaaqaysaa marinka Hormuz inay si buuxda u maamuli doonto hadalka Trump uu leeyahay lacag lama qaadayo warka been tahay marka isdiidooyina jira waa heshiis cid walba ay dhinac u fasirayso luqadda ay rabtana warbaahinta ugu sheegaysa Iran iyo Mareykanka oo hadda la leeyahay waa la gaaray nuxurkiisa ma cadda mana madooba faankiisana wax badan ayaa ku gadaaman laakiin cidda gaartay ayaa si dhab u og waxayna diidan tahay awoodda rasmiga ah inay wax ka qariyaan waa shacabka labada dale soo dhawaada